بسم الله. كسو دوادا مركله iyo barashadani baabuurka qaybtiisa theory-ga ama fahamka calaamadaha iyo qaybta theory-ga markaan qaybta theory-ga u jeedo ma aha koorsada inaan ka hadlayo qaybtii koorsada maaha laakiin waa calaamadaha yani theory-ga caadi ahaan koorsada ayaan ku dhignay laakiin calaamadaha oo ilaa 1000 ka badan runtii iyaga laftarkooduna u baahan in si gaar ah loo sharaxo oo aan theory-ga kaliya lagu dhex sharxin qaarkood laga yaabo in markii su'aalaha la sharxay inaysan imaanin qaarkood way noo imaanayaan insha Allah intooda badan laakiin kuwan waxa laga yaabaa qaar inaysan noo imaan maadaama ilaa 1000 ay yihiin waxaan rabaa marka si gaar ah inaan u sharaxo waxaan kaloo rabaa inaan uga faa'iideeyo dadka aan koorsada dhiganin so qofka koorsada ku jira de theory-ga ugu imaanayaan oo iska baranaya hadhow intooda badan boqolkiiba intaas ama inta ugu muhiimsan laakiin dadka aan koorsada dhiganin ee su'aalaha doonayay calaamadaha inay bartaanin ayaan rabnaa inaan uga faa'iideeyo so دور يطبعاً صدق يطبعاً علامات إلا كم بالشيء علامات هاي نيهين كرمالك طبعاً مدة عن روينا ده خصوصية واحدة مركي علاماتها اللي تشوجه صايخنا كان مركي اللي تشوجه سويسرلاند كرمالك أما دوتشلاند إيو أستريا صدق داس وضن أو اللي راح تشبراخ رام كل سكير هذا دينا علاماتها هو اسمه وwaxa ay u yaqaaniin Schweizerka calaamadan ay Jarmalku u yaqaaniin sidoo kale Austrian-kana saas ay u yaqaaniin laakiin markii theory-ga la yimaado way ku kala duwan yihiin Jarmalku theory gaar ah buu leeyahay Austria theory gaar ah bay leedahay Schweizer theory gaar ah bay leedahay ama calaamadahaas waa isku mid ilaa 1000 weeye baan rajaynaya calaamadahaasi dabadeedna way ka wada siman yihiin saddexda dal kasti sida wadankaas uu isticmaalo ayuu isticmaalaa so saddexda dalba way ka dhaxayaan waxaan rabaa marka inaan sharxo calaamadahan ayda hadaa Switzerland joogto calaamadahan inaad fahamtid way ku anfacaysaa hadaa Austria joogtid sidoo kale hadaa Jarmalka joogtid saddexda wadan mid kasto kamid aad joogtid calaamadahan sida aan ku sharaxno ayaa looga yaqaanaa meesha aad joogtid so waxaan rabaa inaan calaamadahaasi qaybta sare inaan sharxo maanta qaybtan hoose ma sharaxayo idinka ayaan idin deynayaa commentiga ayaan u dhaafayaa haddii aad saxdaanin waxa looga jeedo host commentiga ku dhaafa qofkii saxa waan arki doonaa qofkii saxa waan arki doonaa waan jawaabeynaa insha Allah waan sheegaynaa inuu saxay aydan haddii aad qaybta haddaad fahmaysid marka qaybtan idinku sharaxa qofkii wax ka fahmayta xabad haddaa fahmaysid xabada waxa looga jeedaa for example tan maxaa laga wadaa noo sheeg tan maxaa laga wadaa noo sheeg tan maxaa laga wadaa yanaq waxa adigu fahmi kartid adigoo aan iska cabiraynin wixii aqoon uu ku sheegaya so qaybtan sare baan maanta sharaxaya qaybtan haddaad ka jawaabi weydaan waa 60 waan idin dhaafaya haddii commentiga laga jawaabo lagu saxo waan idin saxaya waan iska dhaafaya haddii kale waxay noqonaysaa video dambe ku sharxo laakiin maanta waxaan sharaxayaa toddobada sare laba line weeye line-ka sare ayaan sharaxayaa so calaamada ugu soo horeysa waxaan u jeednaa nin baaskiil wata horta markooda hore calaamadahu way kala duwan yihiin kuwo midab bay wataan kuwan casaanka wata casaanku kuwa wareegsan yahay iyagoo oo waxay noo imanayaan nin round ah iyagoo oo sidan ah saddex gees ah iyagoo nooc kale afar gees inta way noo imanayaan haddii ba calaamada cas ku jirto macnaheedu waxa weeyaan taxadir khatar bay sheegayaan so aydan tan koowaad waxa ku sawiran nin baaskiil wata qof baaskiil wata baa ku sawiran maxaa leena leeyahay waxa lagu leeyahay meeshaas marka calaamada aragtid waxa laga digaya qof baaskiil wada waa meesha soo mari kara wadada waxa laga yaabaa meel adan adigu arkayno hore inay wada baaskiil kaga imaan karto oo ay ka jarto ama ay ka kulmaaneen ama baaskiil ka soo galo صدرت waxa lagu leeyahay baaskiil ba meeshan soo maraya akhtum taxadir khasab ma hayna baaskiil la kulantid laakiin waa loogish waa suurtagal baaskiila kula isticmaalaya lagu leeyahay wadadaas iska ilaali marka waa inaad markii halka calaamada aragtid waa inaad gaariga taxadirtid lana socotid mar walbana ku xisaabtatid inaad baaskiil la kulantid wadada jaraya sidoo kale tan waxa lagu leeyahay fußgänger überweg waxa lagu leeyahay fußgänger übergang waxa lagu leeyahay dad lugeynaya baa meesha maraya iska jir macnaheedu ma aha dad baa wadada maraya laakiin wadada ay ku soconaysid horteeda baa meel waxa jirta meel dadku ay maraaniin adigu hadda ma aragtid sadarteed baa waxa la rabaa in lagu yiraahdo wadadan dadka maraa iska ilaali marka calaamada aragtid marka waa inaad ku talagashaa dad inay wadada jarayaan marka waa inaad mar walba indhaha furtid oo gaariga soo qabato sida ilaalisid tanna baaskiil baa ku xisaabtamaysaa inuu baaskiil wadada jarayo tan iyadana way iska fududahay waa qof weyn iyo hal ilmo baa ku sawiran macnaheedu waxa weeyaan caruur baa wadada jaraysa iska ilaali haddaad calaamada aragtid inta badan iskoolada xadaanadaha caruurta meelahaas oo dhan ayaa calaamadani ku sawiran tahay
meelahaas oo dhan ayay ku sawiran tahay xadaanada ama meelaha carruurta lagu xanaanayo iskoolada areadaas oo dhan baa lagu sawiraa marka haddaad birta calaamadaas aragtid ilmaha ay qofku ku sawiran yihiin oo saddex geesta oo go'aabinta ah waxaad tiraahdaa meesha tan iskool baa ka dhow ama xadaanada carruurta ka dhow waa goob carruureed oo carruur baa xilli walba wadada mari karta in meeshaas tahay dhulka gaariga la soo qaboojiyo waxaan tiiriyo ku soo baranay ardayda tiiriga dhigta in gaariga markaas soo qaboojinaysa sabab jiro sabab markaad hoos uga digaysid xawaaraha wadada loogu talagalay haddii kale imtixaankana waa lagu soo ridi karaa lamana ogola for example wado oo konton lagu marayay 30 kuma socon kartid iyadoo aanay sabab jirin markaas calaamadana waxay ka mid tahay sababihii ina tusinayeen meeshan carruur ka dhowdahay gaarigan inuu soo qaboojinayay marka mar walba ilmo ordaya oo iska taxadir la'aan wadada ku soo galay baa suurtagal ah taxadir indhaha fur gaariga breega qabo ama breega lugta ku dhaway mar walba aad aragtid ama ay ku soo dhawaadaan carruurna ka qabo gaariga breega lugta ku dhaway ama soo qabooji breegana lugta ku dhaway istartiibi indhahana furo saas ayaa lagu leeyahay yani taxadir ku mar meeshaas taasna waa fahmnay waan rajaynayaa calaamadan ayaa inoo timi calaamadani waxay sheegaysaa khatar laakiin khatartu ma cadda khatarta inoo sheegayso khatar sida carruur iyo qof wada jaraya iyo sida u cayiman baaskiil iyo khatar cayiman maaha khatartaas waxay noqon kartaa tareen waxay noqon kartaa carruur waxay noqon kartaa nin weyn dabcan carruurta inta badan calaamadan lagu calaamadiyaa laakiin dad meesha maraya waxay noqon kartaa wax oo dhibaato ah waxaa lagu leeyahay marka wadada aad hadda maraysid 150 mitir ilaa 250 mitir marka hore u socotid khatar baa la kulmaysaa iyo taxadir mar alla marka calaamada aragtid maxaa ku xisaabtamaysaa khatartu maxay noqon kartaa baaskiil meesha jaraya tareen meesha jaraya iskoys meesha ah cillad oo wadada oo wax kasi yani waxay tilmaamaysaa khatar laakiin khatartu kuma aysan cadaynin oo kuma oran khatartaas jirta laakiin waxay ku leedahay waa khatartan intay ii jirtaa markii calaamada aragtay khatartu waxay ku jirtaa caadi ahaan qaybta teoriga ardayda dhigta waxaan rajaynayaa waynu soo marnay aydan waxay inoo sheegaysaa calaamadani 150 ilaa 250 mitir inay khatartu ii jirto waxa weeye meesha calaamadaas ka taagan tahay markaan soo gaaro 150 mitir ilaa 250 mitir masaafe ii jirta baa khatar ka jirta khatartaas ma garanayo marka caadi isaga soco gaariga soo qaboojiso indhaha furo hortaada eeg khatarta waad arki doontaa taxadir saas ay calaamadaas ku leedahay taxadir 150 ilaa 250 mitir meel ku jirta ayaad khatar kula kulmi kartaa khassa ma ahna khatarta la kulantid laakiin waa la kulmi kartaa saas ay ku leedahay waxayna ku sheegaysaa masaafada khatartu inay 150 ilaa 250 ku jirto kuma qorna laakiin waa sharciga teoriga lagu soo barto halkan waxa lagu yiri akhtum gegen feka maxaa laga wadaa waxaan halkan labadan calaamadood waxay tilmaamayaan nin wadada ayaa baawshta ka jira dhisma wadada ka jira oo adigu line baa ku soconaysa haad baa ku soconaysa gawaaridii haadka kale ku soconayay oo ku dhaafayay ayaa baawshta la xanibay oo dhinacooda ayaa wadada ka go'an tahay oo laga dhisaya marka meesha baawshta luho inta uu haysto gawaarida dhinaca marayay wadadaada ku soconayaan aday kugu soo leexanayaan sadarteed isilaaliyo tartiib u socdo gawaarida marka baawshta la iska hortimaadana iyaga ka xaqle iyaga si oo for example baawshta libaadna dhinac kaga timi iyaguna dhinacii kale ka soo galeen ha oranin iyaga gaasti oo wadadeedu soo galay ana ka horeynaye adigu dib uga soo bax isagoo ha ku soo dhaafo gaarigaas baawshta la soo dhaafaya aydan isku soo wada duubo halkan wax lagu yiri dhisma wadada dhinac ka socda dhinaca dhismo ka socda baabuurtii ku soconaysay haadkan dhinacaga soo galiyaan markay baawshta la dhaafaan bay haadkooda ku noqon doonaan adigu ka taxadiro gawaarida wadada si iska ilaali siyaasa taasna ay noo sheegaysaa tan iyadu waxay noo sheegaysaa tareen calaamadaas waxay noo sheegaysaa wada tareen inayna hor socoto yani wadada aynu ku socono meel kamid ah inuu tareenku ka goyniyo wada tareen inaynu ku imanayso teoriga waan ku soo marnay ardayda teoriga dhigata in badan baynu ku soo marnay aydan wadada waxayna tusaysaa tareen bay inoo sheegaysaa inuu meesha soo maro tareen ayay inoo sheegaysaa inuu meesha soo maro waxayna kale inoo tilmaamaysaa tareenkaasi inuusan lahayn sharaanka waynu naqaanaa waa birtan dheer oo tareenada iyo baabuurta kala xidha ama gaadiidka iyo tareenada kala ilaalisa meelaha qaar meel kasta maaha marka calaamadan waxay leedahay meesha wadada aad marayso horta tareen baa jira waa marka labaade ma aysan laha sharaank birtii wax kala xiraysay oo lagu kala baabuur marka tareenka u furantayna tareenka baabuurta xiraysay markay baabuurta u furantayna furmaysay birtaasu meesha ma laha saa darteed adaa waxaan rabaa inaad taxadirtid wadada tareenka oo hortaada aan iska taagtid indhaha furatid tan iyaduna waa sidoo kale waxayna leedahay tareen baa meesha jaraya iyaduna waxay tilmaamaysaa tareen tan ay la mid tahay laakiin maxay ku kala duwan yihiin tan waxay ku leedahay meesha tareenku wadada ka goynayo sharaankii ma taalo
birtii adiga ba tareenka idin kala hagayso idin kala celinayso adiga ku xanibaysi ma taalo tan laakiin iyadu taas cagsigeeda ay ku leedahay waxay leedahay sharaankii baa taala meesha tareen baa jaraya waa sax laakiin birtii tareenka iyo adiga idin kala celinaysay ayaa markaa meesha gaadhi la kulmi doontaa oo birtaas kugu xidhmi doontaa haddii tareenku soo socdo aydan saa darteed labadaasay ku kala duwan yihiin labaduna waa isku macne mid kasta tareen bay sheegaysaa kaliya midna waxay leedahay birta meesha taala birtaas af Soomaali kuma garanayo midna waxay leedahay ma taalo tan waxay sheegaysaa in meesha wadadeenu marayno dhinac dhisma ka socdo oo gawaarida ay ugu soo leexanayaan tan waxay sheegaysaa masaafo ay jirta 150 ilaa 250 in khatar ay ka jirto tan waxay sheegaysaa in area-dan marayo caruur ay ka dhowdahay oo mar walba caruur wadada soo geli karaan in waan soo sheegnay caruur waxa ka iman karaan in iskool oo kale meesha ka dhow ama xadaanada caruurta meesha ka dhow ama su'uunba bay caruur uga dhowdahay meeshaas marka taxadir baa leeyahay waliba in aad u taxadirtid meesha caruurta ka dhowdahay tan waxay sheegaysaa meesha wadadan marayo meel una kamida inaan kula kulmi karo qof wadada jaraya ka taxadir baa leeyahay tanna waxay tilmaamaysaa qof baaskiil wata ama dad baaskiil wata in aan la kulmi karo iyagana ka taxadir baa leeyahay lixdan hoose idinka ayaan idin deynaya linekaas idinkaan idin deynaya haddaad commentiga si fiican uga jawaabtaan saxdaanin ama qaarkood saxdaanin waan eegi doonaa haddii aad kalena waxaan videoga dambe ayaan sharxi doonaa qaybta labaad خير بدنا يعني دي رجيني السلام عليكم سو أرضي دوني سيني كوسو بيرانين كورسات تيوري فورشين كترمالكا فضلا تلفون كفيسبوك كوقرن وحليه هي واتساب كلهانا ودعيا halkaas inaga soo waca marka qoraalada badan oo Facebook waxa laga yaabaa boqolkiiba inaan ka soo jawaabin mashquulkayga oo badan dartiisa laakiin telefoonka mar walba waa laga jawaabaa WhatsApp-ka markasta waa laga jawaabaa marka WhatsApp-ka ama telefoonka naga soo waca waxaadna ka helaysaan page-ka Bash Academy so page-ka ayaad ka helaysaan marka so page-ka markaad saa u soo gashid waad arkaysaa emailka meesha ku qoran waxa ku qoran telefoonkii emailka laftarkiisa waa la idinka soo jawaabaya cid wax ka soo qortay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh